السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي شقالي هلكان كحران إن شاء الله تعالى وحن ربا مقال آد مهمة إن هلكان إن كل وداقو وكل صابسا محاسوة ديرة سار اللآنتا إيسيد اللو هاقاتيو ورينتي ورطا محان كرتشي دا ديرة سارد هو أود قفك أولي يهي إن أشاقا قبطو ساعة حريرة إن هاد حال شيء آد ديرة دا سارتي waxaan luqadda Ingiriiska lagu yiraahdaa focus on qofka inuu diiradda saaro shaqo saacad xiriir inuu hal shaqo qabto diiradda saarida marka waxa loo adeegsan karaa wax kasta sida waxbarashada shaqooyinka caadooyinka la yaab qofka inuu horumar gaarsiinayo wax kasta aartina qabatid waxay u baahan yihiin runtii in qofku waxa uu diiradda saaro hadaad koorso baranaysid hadaad imtixaan diyaarinaysid hadaad goob ka shaqaynaysid hadaad baratahay هذا واحد كستو أو أقبنيس صاحبي أمرك مقال كان كوبان إن شاء الله تعالى أيان نكلو ذاك يا بل ديرت سعيد داس يسيد الله سما يسنكره وقفك ونقون كره وقفك ونقون كره قف أرمي سمهم كأه ديرت سارة كسو دوادا مقال كمركله وما سنتين أخياري waxaan filayaa in muuqaalkan aad dhamaysid doontiin insha Allah taala aadan isku qancin in aadan muuqaalkan aad dib dhigatid oo mar dambe aad agaalka daawatid taas bedelkeedana aad note samaysatid sababtoo waxaan ogahay muuqaalkan insha Allah taala faa'iidada uu noloshan u leeyahay okay horta diirad saaridda qofku markuu rabo inuu shaqo qabto oo diiradda uu saaro laba qaybood baan u qaybinaa diirad saaridda dadban iyo diirad saarid toos ah ayaan u kala qaadaynaa دير سارد دبان محل يرادا دير سارد دبان waxa weeye in qofku dhowr shaqo uu saacad gudaheed isku qabto tusaale ahaan in qofku soo guriga nadiifinaya cashada u karsamayso hadana telefoon uu ku hadlo ama soo waxaan dhigi karnaa in qofku uu wax akhriyo isagoo laga yaabo hadana inuu muusig dhageysanayo iyo heeso u daaran yihiin ama dad saaxiibadiisa ay u sheekeynayaan ama soo waxaan dhigi karnaa diir saaridda in qofku shaqo uu qabanayo isagoo meel kale ka fakarayo waxaan aan u naqaano qofka jismigiisa jooga laakiin qalbigiisa oo maqan marka diirad saarid la'aantaas diirad saarid noocaas ah waxaan u naqaanaa diirad saarid dadban dadka 90% iyo xoogaa ay adeegsadaan waay oo inteena badan waxyaabaha horumar la'aantan uu keenay waxa kamid ah in markaan rabno inaan wax baranno ama aan rabno inaan wax qabanno aanu diiradda saarno noocan ah diirad saarid dadban oo aan dhowr shaqo isku qabanno waxa arkaysaa hadii aad baratahay waad dareemaysaa bari waxa ku dhacaya inuu macalinka xiisadii sharaxo hadana ardadii uu aamusiyo waxa weeye ardadii ayaa u diyaarsanayn oo diiradda saaraynin casharkan la rabo in loo dhigo marka macalinka wuxuu sameeyaa diiraddiina casharka inuu sharaxo saaraya ardadii inuu aamusiyo waa laga sugaya marka diirad saaridda noocaas ah waa diirad saaridda dadka fashil ku keenta waxaana la yiraahdaa diirad saarid dadban mid kale oo nimaano waxa la yiraahdaa diirad saarid toos ah waa in qofku uu hal shaqo iyo hal waqti qabto waa in qofku uu yiraahdo halkaas saac waxaan akhrinayaa buugaas oo shaqo kale iyo hawl kale uu san qabsan diirad saarid noocaana waxa iska leh dadka guulistayaasha ah su'aashu waxay tahay marka sidee ku horumarin karaa diirad saaridda tooska ah laba diirad waa kala faahnayo diirad saaridda tooska ah ayaa anaga muhiim noo ah sidee ayaan ku horumarin karaa marka diirad saaridda tooska ah dhowr qodob ayaan rabaa inaan kula wadaago qodobka koowaad wuxuu noqonayaa ka dheerow dhammaan waxyaabaha ku mashquulinaya marka artina shaqo qabatid ama artina wax akhrisid dhammaan waxyaabaha ku mashquulinaya waa inaad ka dheeraataa sida mobilkaaga mobilka wuxuu soo dhacayaa fariimo ku soo dhacaya baraha bulshada hadana wixii aad akhrinaysid ayaa isku daysanaa fariin ka jawaabtid inaad taleefka qabatid marka wax kasta oo ku mashquulinaya sida inaad wax akhrinaya music daaratid adiga oo shaqaynaya inaad hadana taleefon ka jawaabtid taleefanada kombiyuutarada wax kasta oo adiga ku mashquulinaya oo shaqada ka mashquulinaya waa inaad iska ignore garaysaa oo iska dheeraysaa maanta waxyaabaha aan wax la qabsan laana oo diiradda shaqooyinka saaran waxa koow ka ah baraha bulshada qofku markuu rabo inuu hawl qabsana oo rabo inuu hawl qabsado waa inuu iska xalliyaa baraha bulshada taleefanka waa inuu iska fageeyaa almuhim qof inuu baraha bulshada ka tag kuma dhahay aniga laakiin marka aad inaad shaqo qabsatid
dabcan wala shaqo qabsanaysaa shaqadan kalena waa shaqo kale marka telefonkan qadka ka xir meel xaggaasa oo soo tag codkana ka xir si intuu dhacay aad u maqal waaya numberka labaad ee aan lagu baraarugsanayn ee diirad saarid tooska ah muhiimka u ah waxa weeye inuu qofku ku dadaalo caafimaadka jirkiisa dadku inta badan kuma baraarugsana barnaamijkan qofku markuu rabo inuu qof wax soo saar la noqdo oo diiradda inuu shaqo saaro ee faa'iido ka keeno uu rabo inuu noqdo waa inuu caafimaadka jirkiisa ku dadaalaa waa inuu qofku uu hurdo ku filan seexdaa habeenkii iyo maalintii markuu soo daro qofku inuu hurdo jirkiisa ku filan uu seexdaa waa inuu qofku exercise yar uu sameeyaa oo maalinle ah waa inuu qofku biyo ku filan uu cabaa laakiin adoo intaasoo dhan samaynin inaad telefoon iska dheeraysaa waxaan filahayaa inaysan wax badan oo saas aysan kuu soo kordhinaynin marka si aad diirad saaridaada natiijo fiican uga soo baxdo waa inaad caafimaadka jirkaagana aad ku dadaashaa oo cuntooyinka nafaqada leh waa inaad cuntaa number 3 tillaabooyin sahlan ku bilow maxaa ka wada tillaabooyin sahlan ku bilow waxaad rabtaa inaad maanta noloshaada bartid diirad saarida tooska ah laakiin horey umaadan aqoonin marka 2 saac oo xiriir ah intaad hal shaqo diirada saari lahayd ku bilow inaad 10 daqiiqo diirada saartid telefoonada iska dheeraysid 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo waxaad gaari doontaa heer aad saacado badan oo xiriir ah laga yaabo inaad hal shay diirada saartid oo noloshaada ay caado u noqoto diirad saarida qolka afraad wuxuu sameeynaa oo diilaan ma ka faa'iideysan karno wuxuu noqon karaa ka faa'iideyso subaxda hore dadka ka faa'iideysta subaxda hore waxyaabaha laga yaabo inay subaxda hore ku mashquuliyaan aad iyo aad ay u kooban yihiin wadaan waa dareemaysa qof marka subaxii soo kacay qof telefoonka hore uga orda waa yaryahay qofku soo wacaya oo subaxda hore uu shaqooyin wax ka rabaa aad bay u yartahay marka subaxda hore ka faa'iideyso oo diirada saacadaha oo horeeya xilli horanta kacdid si fiican diirada u saar qofkan kusoo gabagabeynahay waxa weeye oo shanaad nasiino waa ina qaata salaam marka muuqaaladan diyaarinayo kale muuqaalkan waxaan u talagalay inaan 50 daqiiqo aan qoraaladiisa YouTube-ka meelahaas Google-ka si fiican u baaro nidaamiyo 50 daqiiqo kadib inaan 15 daqiiqo aan nasto kadib haddana inaan codki duubistiisii iyo hawshiisii kale haddana aan galo markaad hawl hal saac xiriir ama 40 daqiiqo aad qabatid waa inaad 10 daqiiqo oo nasiino qaadataa marka saacado badan shaqaysidna dheer oo break nasiino waa inaad qaadataa ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan filayaa diilaad inaan wax badan ka faa'iiday muuqaalka like noo saar haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh aad baan idinkugu mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu